maanta taariikhdu ay tahay 12 shanaad 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal Garowe waxay u fariisatay xukunna ka soo saartay dacwadii qadaafka ahayd oo loo haystay 10 nin oo ay ka mid yihiin Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdishakuur Maxamed Degel, Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame ilaa lambarka 10. maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho Ilyaas Aadan, nimankaasu inay afduubeen, kufsadeen, si wadareed ah dileen, sumcadri Puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen, amnigeeda khalkhal geliyeen. markay xeeraalintisaa eedda ku soo gudisay maxkamaddu markay dhegaysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin, maxkamaddu markay dhegaysatay qareennada, maxkamaddu markay dhegaysatay dhegaysiga koowaad iyo dhegaysiga labaad iyo dhegaysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu ku soo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud xigeenkiisa Maxamed Xareen taarigii dacwada koowaad uu kaga dhigay 3 eedaysane oo kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame. 3daa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo ciddiyihii gabadha dhacaankeedii iyo ciddiyaheedii iyo iyaga dhacaanadoodii oo la soo baaray, Nairobi lagu soo baaray, caddaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen 7 kale laakiin uusan keenin, eeddiisana uu ku ururiyey maadaana wax caddaynaa u hayn in la dhaariyo. maxkamadduna waxay dhaarisay. maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyaddooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. 3 kale oo uu ku soo gabagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday, dilay, qafaashay, dhibtaa u geystay ay yihiin. markaanu qoraallada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin 3daasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa caasho ku sameeyey inay yihiin maada ciddiyihii iyo taabashadii waxa la yidhaahdo dhacaankii laga helay. xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay 3daa eedaysane oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dil oogasha oo dawladdu ay ku samaynayso. dilkaas ay u xilsaarantay iyo dil fuliso bilaa tawfiiq fariista. marka waxaan la socodsiinayaa dadka ma garanaysaa cusbiga waa la socodsiinaya. waxaa loo cuskaday qaraa'in cad. qaraa'in marka la yidhaahdo yuraadu bilqaraa'in alamaaraat الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وجود شيء أو نفيه، كما لو شوهد شخص يخرج من دار مذعورا وبيده سكين ملطخة بالدماء، وعند دخول الناس دار وجدوا شخصا مذبوحا، فيستدلون بما رأوه من حال الشخص الخارج من الدار على أنه هو القاتل الذي باشر القتل بنفسه، مع أنهم لم يشاهدوا ذلك. أو يوجد المتاع المسروق في بيت شخص فيستدل بذلك على أن هذا الشخص هو السارق، أو أن السارق أودعه إياه، أو أن صاحب البيت اشتراه من السارق.
انت مركان كسو بحنا من السنة قرائنتا وحال فهل تعتبر القرائن طريقا من طريق القضاء ووسيلة من وسائل النفي والإثبات عند صدور الأحكام بحيث يصح للقاضي أن يأخذ بها ويجعلها مستندا لحكمه؟ نعم، أن شرع الإسلام اعتبر القرائن ولم يهدرها. ما ترتريو قرائن شرع الإسلامك وحكدغيا وحلا قبسن كره oo masalada daliil looga dhigi karo. waxaana u daliila waqad dalla ala i'tibaar al-qara'in al-kitab was-sunnah wa aqwal as-salaf as-salih min fuqaha'i wa qudati. awalan adillatu al-Quran al-Karim ala i'tibaar al-qara'in wa ja'u ala qamisi bidamin kadib qala bal sawarat lakum anfusukum. markay shaarka keeneen xaqiiqada Ilaahay waa ka waramay ديك بينه بوين أبهودنا وحيي يعقوب بل سولت لكم أنفسكم مركا سووا هلكا موجي إن افتاض وحكا نقول حسي وحجرة وسنهين وحي علماء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بما رآه من سلامة القميص وعدم تمزقه وحو هلكاس أدلي شيء إنيسان حقيقة سوى فقسن شيئين markuu arkay shaatigii inuu nabad galay oo wax jeexjeexa uusan lahayn xataa ruuyanahu qaala lahum ila laga sheegay inuu iyagu ku yiri maanayaalow mataa kaanadi wa hakiman yaakulu yusuf wala yakhul khamis usadina waa cunay maganaysa maradiina ma jeexjeexin marka waxay ku tusaysaa qaraa'inta rismiga ah markaan hadda soo qaadno oo sii wadno sida maganaysa هذا واحد اللي يراهده أبيقانك أو علامة نبيه عليه الصلاة والسلام واسوي ومن السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بقول القافة وحكمي نكي سنجيقانك أما أبيقانك أها مركو يلقفك نقفك أسوي سوقي هو علي سلا سوق حكمي وحكم ذا من أقضية ثالثا من أقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دون نكير من حد بإقامة الزنا. عند كظهرت من المجلس نبي عليه السلام وحير الحق مع عمر وعلى قرنية على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها هوين أور له وأن لها دو حدك كعوبي على قرينة ظاهرته أور كاس بانا موجي إني سنيستي. وحكى له جرى أيضا عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما بوجوب الحد بالرائحة الخمر. خمر ما كان يساوي كصوري في فم الرجل من أفكي أو قي خمرا على القرينة ظاهرتي ويضع استضي قرينة ظاهرك. سدا وحنا لسه سنينا قرينة داس تضبط كبرية شيء وصدح ذا لصو بحذي حيرانتو كانت إني محكمة وأركتي وحق وافقسن إني تهي وحكم كوعسكتي وحويه وحال إله بينه لكل ما يبين الحق ويظهره معها مرخانتي إيا دار إيا قراء الكلية بينه معها ولا سعد سينينا ضدك قفكي أن مقريسا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو تكون نكورا أو تكون شاهد الحال حالة ماشة تال قيمين هذا إيو نكول كقفكو وحين نغنياني يقول بينة نغنيان فإن من الشهود من البينات والقرينة من البينات مرخانتك هي قرينة بينات كي كميهن عد وقد تكون القرينة في بعض المواضع أقوى دلالة في صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين مرارك قيبتوت قرينة ويكحوك بدنتهي شاهدات أنك وركض. وكان أيضا فقهاء أخذ الفقهاء بالقرينة واعتبروها وسيلة من وسائل إثبات وطريقا من طرق الحكم. فقهاء ويقاتين وحين هل كاكم عليا أو قاتين أو اعتبارين
wasiilo waxaa lagu gaaro inay tahay waxa sugnaada oo xukunka lagu gaaro sidaas marka baanu idinla socodsiinaynaa xukunkana waa ku qoraynaa maxkamadduna saasay ku xiran tahay wabilaahi tawfiiq